yaa ayuha annaas innaa khalaqnaakum min dakarin wa unhaa wajacalnaakum shucuuban waqabaa'ila litacaarafuu ina akramakum cinda allaahi atqaakum. wardadoo rag iyo wiil waxaan idinka abuurnay buu dhaha ilaahay dakar iyo unhaa, waxaan idinka yeelnay shicbiyaalii qabaa'ilo, waxaan ugu talagalnay tacaarufi, uguma talagelin in lagu kor maro. laakiin saa darteed ogaada midka idinkugu fiican, idinkugu karaamo badan alla agtiisa waa midka idinkugu cabsi badan. qof walba qof kale intuu ka cabsi badeeb waa looga dhow yahay, qof kastaa qofka kale intuu uga taqwo badeeb waa looga dhow yahay subxaana wa tacaala. aan wax badan alla ka cabsiga laasimna walaalayaal. alla ka cabsigii maanta waa yaraaday, xusuusin kartaanba jirinba. qof aayad loo akhri karaa nagu yaraaday, qof xuduudda alla ilaaliyaa nagu yaraatay. in yar oo rabbi u naxariistay maahee walaalayaaloo alla ka cabsiga aan badina si ilaahay noogu naxariisto. aan alla ka cabsiga laasimna walaalayaal, aan alla ka cabsiga ka dhigana sahaydii, waayo wax kasta oo lagu badbaado sahay laga dhigta alla ka cabsigaa ugu sarreeya, alla ka cabsigaa ugu weyn. alla ka cabsigaa laagtiisa wax anfaca, alla ka cabsigaa laagtiisa wax tara, alla ka cabsi baa ilaahay agtiisaaad ku liibaanaysaa. sidaa darteed waa inaan aad iyo aad alla ka cabsiga u badinaa. rasuulkii allow dadka maxaa ugu badan oo ay cadaabka ku galaan baa la su'aalay. wuxuu ugu jawaabay waa afkiiyo xibinka taranka ah, waa labada ugu xun ama labada ugu daran ee dadka cadaabka geliya. maxaa dadka cadaabka ku aruuriya walaalayaal? waa afka. shirkigaa lagala hadlaa, rabbi baa looga shariig yeelaa, kufrigaa looga dhawaaqaa, ummaddaa lagu xantaa, dhibaato badan baa lagu sameeyaa. afkaa ugu badan qof allaala qofkaan iska ilaalinin. sidaa darteed buu rasuulku yidhi, war yaa ii ballan qaadaaya, war yaa ii dammaanaaya, yaa caawa ballan qaadi kara inuu ilaalinayo labadiisa lafgardaan waxa u dhaxeeyo carabka ah iyo labadiisa lugood waxa u dhaxeeyo farjigiisa ah oon janno u ballan qaadaa buu dhahay nebiga sala allahu calayh wasalam. war yaa janno u ballan qaadaa, war yaa iga dammaani kara labada, war yaa iga xafidi kara labada, war yaa ilaalin kara labada, war yaa labadaa ka adkaan kara, war yaa afkiisa khayrka sheegi kara, war yaa afkiisa alla ka cabsi ka soo bixi karaa, war yaa afkiisa aayaadka alla ka soo bixi karaa, war yaa afkiisa dikriga alla ka soo bixi karaa, war yaa xibinkiisa taranka ilaalin kara, war tii gacanta u soo taagta yaa ka celin kara gacantiisa, war yaan gabar ajnabiya gacan ku salaamayn, war yaanan dhunkanayn, war yaan gacanta ka qabsanayn oo ilaalinaya, war yaa cafiif noqonaya. yaa janno loo ballan qaadaa, labadaa qofkii ilaaliya janna ayaan u ballan qaaday buu dhahay sala allahu calayh wasalam. walaalayaal aan dadaalno, adduunkan matac guruur ah waaye, xaaraanteedii xumaanteeda in badan aan ka fogaano. wixii shaydaan nagu qabtoo nagu simbirixiyo, nafteenna intay jeclaysato aan ku dhacnoon is aragnana aan ka soo laabano. waaladiina attaqow idaa massahum taa'ifun min ashayطaani tadakkaruu. dadka muttaqiinta ah, alla ka cabsadayaasha, ilaahay dadka aad uga cabsada waa kuwa markuu shaydaan simbirixiyo, waa kuwa markuu shaydaan legdo, waa kuwa markuu shaydaan xumaan ku dhex rido isxasuusto oo rabbi u soo laabtay subxaana wa tacaala. waxaad mooddaa inayba arkayaan, way ka soo cararayaan, way ka soo ordayaan, way ka soo fakanayaan, rabbi bay ka magangelayaan. idan waa cadow cadaabanimadiisa ay caddahay.